Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maalin wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka aad ka daawan doontaan janalkeena Ilayska Wararka. Cabdiweli Muudey oo la ogaaday inuu waday qorshe uu dagaal ugu bilaabi lahaa Baraawe balse laga hortagay. Taliska booliiska Soomaaliyeed oo sheegay in Cabdiweli Muudey uu Baraawe u watay ciidan badan iyo hub culus. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la doortay iyo farmaajo arrintaasi ka naxay. iyo shaki cusub oo hareeyay dhameystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Qodobadaas iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan warkeena ee daawada janalka. Haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, haddii aad hore noola joogtana muuqaalka like saar oo asxaabta la wadaag mahadsanid. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa loo doortay kursiga beeshiisa ee golaha shacabka iyo farmaajo arrintaasi ka naxay. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya kadib doorasho maanta ka dhacday gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ah xubnaha musharaxiinta mucaaradka ah ayaa guul taariikhi ah ka soo hooyay doorashada inkastoo uusan gelin tartan adag sida uu shaaciyay guddiga doorashooyinka ee Galmudug. Naciimo Xuseen Cali oo la tartami lahayd Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka tanaasushay tartanka kadibna waxaa loo qaaday cod gacantaag ah isagoo helay cod gaaraya 86 cod oo ah dhammaan ergadii soo xaadirtay. Guusha Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhabarjab weyn ku ah fila Soomaaliya oo isku dayday inay kursiga ka hor istaagto maadaama uu ka mid yahay xubnaha ay sida weyn u diidaneed mucaaradka weyn ku ahaa farmaajo. Doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dardar ku socota waxaana qorshaha yahay in la soo gabagabeeyo ka hor 25 bishan. Cabdiweli Muudey ayaa la ogaaday inuu waday qorshe uu dagaal ugu bilaabi lahaa magaalada Baraawe balse laga hortagay. Dhanka kale taliska booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay in Cabdiweli Muudey uu Baraawe u watay ciidan badan iyo hub culus. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay is-horistaagii shalay lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo loo diiday inuu ka baxo garoonka Aadan Cadde xilli uu ku sii jeeday magaalada Baraawe. Cabdifataax Aadan Xasan ayaa sababta ku sheegay in gudoomiyuhu uu watay ciidamo fara badan iyo hub culus taasina ay keentay in laga hor istaago in ciidamadaas uu kala baxo garoonka. Sidoo kale waxa uu intaas ku daray in isaga aan si gaar ah loo bartilmaameedsan balse ujeedku uu ahaa arrimo la xiriira amniga doorashada. Afhayeenka ayaa xusay in amniga Baraawe uu sugan yahay isla markaana musharaxiinta tagaya kaliya loo ogol yahay ilaalo gaaraya 4 ilaa 5 sida uu hadalka u dhigay. waxaa garoonka Aadan Cadde International Airport ka dhacday yar oo quseysay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane xildhibaan Muudey oo rabay inuu aado deegaanka Baraawe oo ay ka socoto wajiga labaad ee doorashada maamulka Koonfur Galbeed oo si nabad ah ku socota si dardar leh ku socota. ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo siinaya muhiimad deegaanka qadiimiga ee Baraawe waxa la geeyay ciidankii ugu tayada badnaa saraakiishii ugu aqoonta badneed ee sugaysay amniga deegaanka Baraawe. ma jirto sabab qof shakhsi ah muwaadin Soomaaliyeed ha ahaado mid wax dooranaya mise mid la dooranayo intaba ay ugu cabsadaan deegaanka Baraawe ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta badan ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka. Eelboorka Aadan Cadde waxaa ka dhacday in ciidan tiro badan oo sita hub culus oo rabay in ay raacaan diyaarad ay ku baraarugeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed. ciidankiina la hakiyay markii dambena la ogaaday inuu wato gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Muudey laguna wargeliyay in loo ogol yahay sida sharciga ah ilaaladiisa gaarka ah oo gaaraysa 5 ilaa 4. sababtoo ah Baraawe waa deegaan xasiloon, waa deegaan ammaankiisu sugan yahay ayna gacanta ku hayso dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda kala duwan oo uu horeeyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo wakiil ka ah sugidda amniga doorashooyinka dalka. haddaba muwaadin kasta oo la dooranaya ama wax dooranaya qof kasta ha ahaado ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay mas'uul ka yihiin ammaankiisa, sugidda amniga, sugidda doorashooyinka. waxaana har iyo habeen u teedsan ciidan booliis Soomaaliyeed oo dhaxanta iyo dhidada u taagan
in ummadda Soomaaliyeed ay si xur xalaal isku doortaan oo ayaga danahoodana ka shaqeystaan mana jirto sabab qof wax dooranaya qof la dooranayo oo uga baqi karo deegaanka Baraawe oo ammaankiisa uu sugayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida muwaadiniinta xildhibaanada iyo cid walba oo musharax ahna waxaan ku wargelinaynaa in deegaanka Baraawe ammaankiisa sugan yahay ayna joogaan ciidanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidamada qalabka sida iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo iskaashanaya oo sugaya ammaanka doorashooyinka annaga haddaan nahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa naga quseeyaa in doorashadaas ammaankeeda la sugo oo shakhsi la dooranaya iyo mid wax dooranayaba aysan wax dhiba arag taasna waa u taagan yihiin waa kuwa har iyo habeen hoodku ugu jira in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si caadi ah isku doortaan oo aysan wax qalqal amni daraa qabin muwaadin kasta oo damac ka leh inuu aado doorashooyinkaasna waxaan ku wargelinaynaa ilaaladaada gaarka ah oo shakhsiyan waa lagu ogol yahay laakiin saanad boqolaal ciidan oo hub culus oo artillery iyo nooc walba leh wata inaan laga ogolaan doonin in deegaan xasiloon la geeyo wax walbana ay dhici karaan waxaan ku wargelinaynaa muwaadiniinta aadaysa doorashada in ilaaladooda gaarka ah 3-4 ugu badnaan mas'uuliyiinta sare ilaa 5 qof ay wataan marka laga reebo mas'uuliyiinta sare ee dalka waxaan u ogolnahay xildhibaan kasta oo aaday deegaan doorashadiisa inuu ka haysan karo 5 askari sida ammaanka ba uu yahay Baraawana ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin sare horeyna uu u booqday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee guddiga amniga doorashooyinka taliska booliiska Soomaaliyeed wuxuu balan qaadayaa in goob kasta ay doorasho ka dhacayso oo dalka ka mid ah ciidan booliiska jooga loo tababaray sugidda amniga doorashooyinka kaliya qaas u ah marka muwaadiniinta Soomaaliyeed nooc walba yihiin waxaan ku wargelinaynaa in qofka ilaaladiisa gaarka ah 2 3 iyo 4 ilaa 5 uu wadan karo laakiin saanad military oo culus intaas la la aadi karin gobolada dalka diyaaradaha naftirkooda ay qalqal galaan oo dhahan ma qaadi karno marka annaguna waxaan mas'uul ka nahay amniga diyaaradda amniga mas'uulka iyo amniga ciidanka baxaya naftirkoodii xafidaaday u baahan yihiin intay hawada ku jiraan marka taa annagoo ka duulayna waxaan uga digaynaa in mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo cid walba oo damac leh doorasho u socota inay u diyaar garowdo in ilaaladeeda gaarka ay qaadato Muuday ayaa la ogaaday inuu doonayay in Baraawe uu geysto ciidamo fara badan si uu halkaas dagaal ugu bilaabo haddii kursiga loo diido xogo aan helnay ayaa sheegaya in shalay subaxdii dhowr doomood oo ciidan ah oo ka diray magaalada Muqdisho balse lama oga ilaa haatan halka ay tageen shaki cusub ayaa hareeyay dhamaystirka doorashooyinka golaha shacabka Soomaaliya waxaa shaki laga muujinayaa in doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeyn karo muddadii lagu heshiiyay iyo in kale sababo la xiriira dhowr arrimood oo isbiirsaday sida ku cad heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee doorashada kuraasta golaha shacabka ayay tahay in lagu soo gabagabeeyo muddo 40 maalmood gudahood ah oo ka eeg 25 bishan ilaa iyo haddana xitaa lama soo dooran kalabar kuraasta golaha shacabka oo ah 275 kursi marka laga soo tago maamulka Koonfur Galbeed maamul goboleedyada kale weli ma aysan ka bilaabin doorashada golaha shacabka goob doorashada labaad Jubbaland oo caqabad ka haysato Garbahaare iyo Hirshabeelle oo aan la ogeyn goorta ee doorashada kuraasta golaha shacabka ka bilaabi doonto magaalada Beledweyne iyo Puntland oo weli aan wax abaabul ah ka bilaabin magaalada Boosaaso waxay arintaasi oo dhan wiiqayaan suurtagalnimada in doorashada golaha shacabka lagu qabto waqtigii lagu heshiiyay siyaasiyiinta qaarkood ayaa ku sheegaya inaysan jirin wax ifafaala ah oo muujinaya in doorashada 275 kursi ee golaha shacabka lagu soo gabagabeyn karo waqtigii lagu heshiiyay daawadayaal wanaginta warkii aad ka daawanayseen channelkeena Ilayska Wararka haddii aad nagu cusub tahay daawada muuqaalkan like saar oo channelka subscribe noo saar haddii aad hore noola joogtana muuqaalkan asxaabta la wadaag like na saar mahadsanid